أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن شاء الله تعالى ودروستي بشهر رمضان أن وتلقلني aan dadka aan ugu soo bandhigaynay ugu soo gudbinaynay bisha barakaysan iyo axkaamteeda iyo soomka iyo axkaamtiisa. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay soonka iyo xukunkiisa, khaasatan fadliga bisha ramadaan iyo waxyaalaha loo baahan yahay qofka muslimka inuu sameeyo. saan la socono walaalayaal, in la soomo bisha ramadaan oo soomku wuxuu ka mid yahay bisha ramadaan la soomo arkaanta islaamka ayuu ka mid yahay waajibka ku ah qofka muslimka ee ku sugnaaday kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta. kitaabka waxaa ku soo arooray ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu noogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. saasoo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, ama aayaddaa hore macnaheed waxa weye kuwa ilaahay rumeeyeyo ilaahay wuxuu idinku qoray, idinku waajib yeelay inaad soontaan sidii dadkii idinka horreeyeyba lagu waajib yeelay inay soomaan. soomkuna waxaa idin dhaxal siinayaa oo idiin siyaadinayaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu kaloo qur-aan ku yidhi shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala, bisha ramadaan waa bishii ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey. waxaa ku sugan hanuun, qur-aanka waxaa ku sugan hanuun iyo bayinaat waadixaada oo tusinaya xujooyin cadcad oo ilaahay waxdaaniyadiisa, ilaahay inuu keliyahay subxaanahu wa tacaala tusinaya, iyo kala saarid xaq iyo baatilka la kala saarayo. ilaahay wuxuu yidhi faman shahida minkum ashahra, qofkii arka bisha ramadaan ama qof muslima uu u sheego inuu arkay falyasum ha soomo. marka labadaas aayadoodba waxayna tusinayaan oo ay waajib ah in la soomo qofka muslimka ee baaliqa ee caaqilka ah ee aan acdaarta sharciga ee gadaal aan ka sheegi doono aan haysan in uu soomo ayaa loo baahan yahay. amaa sunnada axaadiista tusinaysa inuu soomku waajib yahay way badan tahay. xadiidkii caanka ahaa ee ahaa bunya alislaamu calaa khamsin shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wa siyaami ramadaan wa xaji lbeyt. xadiidkaas waa xadiid saxiixa oo caan ah, muslimiinta iyo dhammaan dadka muslimiintaana ay wada xifdisan yihiin. xadiidkii dalxa ibnu cubaydillaah baa isna ninkii waa tu weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhi yaa rasuula allah akhbirnii ii sheeg buu yidhi camaa farada allahu calaya min asiyaam, waxa ilaahay igu faral yeelay ee sooma ii sheeg. qaala nebigu wuxuu yidhi shahru ramadaan, bisha ramadaan weeye. markaasuu ninkii weydiiyey wuxuu yidhi wax kale dushayda ma yihiin, hal calaya kayruh? qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa ilaa an tatawac, aad soon sunna aad soontid maahane soon maaragtay kale oo waajib ah ma jiro aan ahayn. ummadda islaamkuna waxay ku ijmaacday oo aan cidna khilaafin inuu ramadaanku uu ka mid yahay arkaanta islaamka ah ee waajibka ah ee mima culimat min addiini bidaruura, waxyaalaha diinta qof walba uu og yahay ay ka mid tahay. qof kastaoo muslim uu og yahay, qofkii inkirana uu kaafir yahay. qofkii dhaha layguma laha soon ama soonka inkira isagoo muslim ahaa waa qof murtada weeye. marka axaadiidtaas ayaa ku soo aroortay iyo adiladaas faraha badan soonka iyo fadligiisa. ama waxaan ujeedaa axaadiidtaas iyo aayadahaasa waxay ku soo arooreen soonka waajibnimadiisa. ama fadliga bisha ramadaan waxaa nooga firan laba xadiid keliya inaan sheegno. waxaa ka mid ah xadiidkii abi hurayra ana nabiy sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi lamaa xadara ramadaan, markuu ramadaan uu soo galay ayuu nebigu saxaabadiisa ayuu u bishaarayn jiray. markuu ramadaanku soo galo saxaabadiisa ayuu u bishaarayn jiray. wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam qad jaa'akum shahrun mubaarak, waxaa idin yimid oo idin soo siyaartay oo idin yimid bil barakaysan. iftarada allahu calaykum siyaama, ilaahay uu idinku waajib yeelay inaad soontaan bishaas. tuftaxu fiihi abwaabu aljanna, bishaas waxaa la furaa albaabada jannada ayaa la furaa. wa tuqlaqu fiihi abwaabu aljaxiim, waxaa la xiraa albaabada naarta ayaa la xiraa. wa tuqallu fiihi shayaadiin, shayaadiintana waa la jeebeeyaayoo waa la xirxiraa. fiihi bisha ramadaan waxaa ku dhex jira leylatun hameyn
oo khayru min alfi shahr ka khayr badan kun habeen ka khayr badan man xurima khayrahaa qofkii laga xarimo bishaa barakaysan fadligeeda iyo laylatulqadarkaas fadligiisa faqad xurim kaas ayaa ah qof maaragtay nasiib daran macnuhu waa saas weeye qofkii haleeli waaya oo bishaa barakaysan ka faa'iidaysan waaya runtii waa qof nasiib xun weeye waa qof nasiib daran nebiguna sala allahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayuu mimbarkiisii saddexda isteeb ahaa ayuu koray markuu isteeb koraba wuxuu odhanayay aamiin buu odhanayay markii saxaabadu ay weydiiyeen dheh yaa rasuulallah maxaad aamiin u tiri wuxuu yidhi nebi jibriil baa ii yimidoo waxa uu yidhi saddex duco ayuu sameeyey wuxuuna iga dalbay inaa aamiin dhaho aniguna aamiin baan u iriyo saddex duco waxaa ka mid ahayd qofkii ramadaan intuu u soo galo aan loo dembi dhaafin oo intuu dadaalo oo ilaahay baryo oo ilaahay isku bihinbihiyo aan loo dembi dhaafin ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas naar ha ku fogeeyo aamiin baana u iri buu yidhi maaragta axaadiidta ku soo arooray fadliga bisha barakaysan waxaa ka mid ahaa xadiidkii carjafa waxa uu leeyahay kuntu cinda cutbata ibnu farqad baan la joogay wa huwa yuxaditث can ramadaan nin taabici ayuu ahaa marka waxaa noo soo galay buu yidhi nin saxaabadii nebiga ka mid ah sala allahu calayh wasalam magaciisa muusan sheegin saxaabadu kulluhum cuduul magacooda in la sheega khasaba maahan saxaabadii nebi maxamed nin ka mid ah noo soo galay taabicigii marka wuu ka heebadaysto wuu aamusay saxaabigii ayaa marka wuxuu yidhi nebigan waxaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo leh tuqliqu abwaabu nnaar bisha ramadaan abwaabta naarta ayaa la xiraa wa tuftaxu abwaabu ljanna albaabada jannada ayaa la furaa bimacnaa waxay naxariista ilaahay baa imaanaysa weeye albaabada jannada haddii la furo wa tusafadu fiihi shayaadiintana waa la jeebeeya waa la xirxiraa wa yunaadii fiihi malakun meleg ayaa dhawaaqa marka bisha ramadaan markay dhalato meleg ayaa dhawaaqo wuxuu dhahaa melegaas wuxuu ku dhawaaqaa yaa baaqiya alkhayr warkan khayr rabow abshir bishaarayso riwaayad kalena waxay ahayd aqbil soo jeenso oo waa waqtigii khayrka la shaqaysan jiray khayrka shaqayso wa yaa baaqiya shar kan sharka maaragtay usoo tafaxaytay oo sharka rabow aqsir war ka joogo ka gaabso sharka ka joogso xataa yanqadiya ramadaan ilaa ramadaanka uu ka baxo saas ayuu dhahaa melagaas uu dhahaa sidoo kale fadliga bisha ramadaan waxaa ku soo arooray xadiidka abi hurayra nebiga uu ka wariyey nebiguu yidhi alsalawaatu alkhams salaadaha shanta ayaan tukanno waljumcatu ila aljumca qofka jumcooyinka maaragtay xifdiyo jumco kasta ilaa jumcada kala xifdiya wa ramadaanun ilaa ramadaan qofka bisha ramadaan soomo ramadaanka kale gaarsiiya yacni ilaa ramadaanka kale laga gaarayo mukafiraatun limaa baynahunna waxa ay dhaafaan dembiyada qofka ka dhaca ida jtunibat ilkabaa'ir haddii laga fogaado dembiyada waaweyn macnaheed waxaa weeye qofkii shanta salaadood xifdiya oo hadduu alla kuu roon yahay jamcooyinka xifdiya oo bisha ramadaan xifdiyoo sooma ilaahay wuxuu u dhaafaa dembiyada ka dhaca ee saqaa'irta ah haddii uu ka fogaado dembiyada waaweyn iyagu waxay u baahan yihiin toobadkeen bay u baahan yihiin fadliga bisha ramadaan waxaa kaloo ku soo arooray xadiidkii abi hurayra ee saxiixa bukhaari iyo muslimba ay wariyeen ee nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man saama ramadaana qofkii sooma bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban ay isagoo u soomaya rumayn oo ilaahay uu rumeeyey awaamirtiisana uu rumeeyey oo ilaahay amarkiisa fulinayo waxtisaaban ay talaban min alajri wathawaabi min allah ilaahayna uu ka dalbayo ajar uu ka dalbayo qofkii saa u sooma qufira lahu waxaa qofkaa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiisii hormaray ayaa loo dhaafaa oo ilaahay uu u dhaafayaa subxaanahu wa tacaala dembigiisa ayuu dhaafayaa allah subxaanahu wa tacaala marka walaalayaal bisha barakaysan ee ramadaanka ah fadligeeda lama soo koobi karo waa bishii ilaahay qur'aanka kariimka uu soo dejiyey waa bisha ay ku jirto leylatulqadr ay ku jirto waa bisha albaabada jannada la furo waa bisha shayaadiinta la xiro waa bisha maaragtay jibriil uu nebiga qur-aanka kaana yudaarisu annabiy sal alla alay slm qur'aanka waa bishaa fadliga badan waxaa loo baahan yahay inaan ka faa'iidaysano oo aysanna dhaafin oo aan u diyaar garowno fadligaas faraha badan ee bisha barakaysan ee ramadaanka ku sugan runtii waa fursad qaali ah waa fursad qaaliya oo aynu ogeyn in ay nagu soo noqon doonto waxaan ogsoonnahay walaalayaal
dad badan oo walaalaheen ah ehelkeenna ah qaraabadeenna ah asxaabteenna ah dad badan oo deriskeenna ah oo bishii hore sanadkii hore nala soomay sanadkii hore bishii ramadaan nala soomay sanadkan inaysan jaaniskaas aysan helin oo ilaahay u oofsaday ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala dembigooda inuu dhaafo janna firdowsana u geeyo adigu marka haddii ilaahay ku gaarsiiyey waa fadli aad u weyn fadli aad u weyn weeye runtii dad badanna aysan dareensaneen walidaalika nebigu sala allahu calayh wasalam bisha rajab ee bishii hadda dhammaatay ee shacbaan ka sii horreysay markay dhalatay ayuu wuxuu dhihi jiray ilaahay waxaan ku weydiisanaynaa fadliga bisha tan iyo khayrkeedaan ku weydiisanaynaa ilaah iyo bisha ku xigta oo shacbaana waballiqna ramadaan ilaahu ramadaanna gaarsii buu dhihi jiray nebigu sal alla alay slam waxaa la yidhi salafu saalix saxaabadii taabiciin dadkii wanaagsanaa lix bilood ilaahay waxay weydiisan jireen ramadaanku markuu dhammaado ilaahu naga aqbal ramadaankii ilaahu ramadaankii aan soonnay naga aqbal lixda biloodoo ku xigtana waxay ilaahay weydiisan jireen ilaahu ramadaanka soo socdana gaarsii marka haddii ilaahay ramadaanku gaarsiiyey walaalle waxa weeye waa runtii waa fursad qaali ah qur-aanka akhrintiisa in maaragtay la dikriyo in sadaqaadka lala baxo in maaragtay ina ka faa'iidaysatay qiyaamu leylka fadligaas faraha badan baa ku soo arooray in sha allahu tacaala fadliga khaaska ee leylatulqadr ku soo arooray 10 awaakhir درس خاصة أيان وهذا دونا هدو اللي يراهدو درس جيني عاونا إن شاء الله تعالى انتاس أيان نكسو كوبينا والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون